Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidii hore idinku ballan qaaday Somali Islamic TV inay idin bilaabi doonto barnaamijyo ku saabsan qaabka ugu fudud uguna sahlan ee aad u diyaarin karto imtixaanka jaamacadaha, iskuulada, maxadada iyo dhammaan qof kastoo imtixaan galaya kuna guuleysan karto aadna ku farxi doonto insha Allah natiijada aad keento una aayi doonto. Ayaa maanta waxay idin bilaabaysaa qaybtii koobaad oo ku saabsan mowduucaas. Ii ogolow in aan kula wadaago oo kuu bilaabo barnaamijkeena kiisa koobaad ee ugu horeeya. Markaad doonayso imtixaan inaad diyaariso, intaadan imtixaanka bilaabin, ha isdhibin, hana walwalin, hana biqin, dhowr qodob samee ka hor intaadan imtixaanka diyaarin. Marka maanta waxaan doonayaa inaan kuu soo gudbiyo inta qodob aad sameynayso. Kow, waxaad sameysataa jadwal aad ku diyaarsato imtixaankaaga. Ma aha mana sheegayo jadwalka imtixaanka lagu galayo ay markaas soo saartay muassasadii sida jaamacaddii soo saartay haddaad arday jaamacadeed tahay, iskuulkii soo saaray haddaad arday iskuul tahay, maxadkuu soo saaray haddaad tahay arday maxad, kaama sheegayo. Laakiin jadwal adigu aad naftaada u degsatay oo aad ku nadaamsatay qaabkaad u diyaarin lahayd imtixaanka, waqtigaad diyaarinayso, waqtigaad helayso, inta saacadood aad maalintii jaanis helayso, inta saacadood aad habeenkii jaanis helayso, diyaarso. Tusaale, maanta waxaad maalintii helaysaa tusaale ahaan 3 saacadood oo free ah baad helaysaa maalin kasta. 3daas saacadood ee freega aad maalintii helayso waa inaad ugu talagashaa jadwalkaaga inta xiiso ama inta maade aad 3daas saacadood ku diyaarinayso imtixaankooda. Habeenkiina waa la mid wama ila daalika. Shayga koobaad shayga weey. Shayga labaad ee aad sameynayso waxaad doorataa waxa loo yaqaan ikhtiyaar alwaqt almunaasab. Waxaad doorataa waqti munaasab ah oo imtixaanka diyaariso. Wali imtixaanka diyaarintiisa maadan bilaabin. Waxaad doorataa waqti munaasab imtixaanka diyaariso. Waqti walba imtixaanka lama diyaari adoo maanta oo dhan shaqeynayay oo mashquulsan oo maskaxdaadii jirkaagii daalan yahay haddaad dhahdo duhurka ma imtixaan diyaarinaya la yumkin suurtagal maaha. Marka waxaad sameysataa oo aad doorataa waqti munaasab aad diyaarso imtixaanka. Waqtiyada munaasabka haddaan tilmaamo waqtiyada ugu fiican waxaa ka mid ah qabla qubayl salaatul fajr, salaada subax ka hor haddaad kacdo 4 habeenimo ama 3 habeenimo aad tukato, weysaysato, cadayato, kadibna aad imtixaankii diyaariso waad guuleysanaysaa, waadna liimaanaysaa. Waana waqtiga ugu fiican imtixaan la diyaariyo. waxaa ka mid ah waqtiyada munaasabka ah salaada subax kadib. waxaa kaloo ka mid ah waqtiyada munaasabka barqadii. waxaa kaloo ka mid ah waqtiyada munaasabka casarkii, laakiin waa markaad maalintii seexatay aad hurdo ka soo kacday waqti munaasaba. habeenkii noocma wax ka mid ah. idan waqti munaasaba waa inaad diyaarsataa. waayo waqti walba waxba lama diyaarin karo, waqti walba waxba lama xifdii karo. marka waqti munaasaba oo aad imtixaanka ku diyaarinayso waqtiyada had yaraan shilin waqtiyada ay tilmaameen dadka cilmi baarista sameeyay ogaaday waqtiga ugu fiican imtixaanka la diyaarin karo inuu waqtiga yahay. idan ikhtiyaar alwaqt almunaasib laga maarmaan weey. qodobka saddexaad ee aad sameynayso waxaa weeye al-ikhtiyaar fi makaan. waa inaad doorataa makaankaad imtixaanka ku diyaari lahayd. haddaad dhahdo meel walba imtixaankan ku diyaarinaya iyo boos kasta suurtagal maaha, waxba ma diyaarinaysid. waqtiga baa kaa lumaya, kaa dayacmaya. marka intuusan waqtigu kaa lumin kaana dayacmin waa inaad horta diyaarsataa boos iyo makaan iyo meel aad imtixaanka ku diyaarsato. meelaha ugu fiican imtixaanka lagu diyaarsado waxaa ka mid ah inaad hesho guri cidla ah, qol cidla inaad hesho, inaad hesho masaajid dad yar. waa meelaha ugu fiican imtixaanka lagu diyaariyo. laakiin haddaad dhahdo meherad baan ku dhex diyaarinayaa ama makhaayad baan ku dhex diyaarinayaa ama meel kafe laga cabayo sharaabada laga cabaan ku diyaarinayaa ama meel kumaankun qof joogtaan ku diyaarinayaa, idan adiguna waa daalaysaa, maskaxdaadana waa daalinaysaa, waqtiguna wuu kaa lumayaa, waxaad diyaarin karto xifdii kartana ma leh. marka waa inaad heshaa meel munaasab ah oo imtixaanka ku diyaariso. idan intaas markaad hesho imtixaanka diyaarintiisa waad bilaabi kartaa. haddaan soo ururino waa inaad horta jadwal aad samaysan imtixaanka ku diyaarsato waa inaad samaysataa. 2, waqti munaasab imtixaanka aad diyaarisana waa inaad heshaa. 3, makaan iyo boos munaasab imtixaanka aad ku diyaarisana waa inaad heshaa. 3daas shay markaad hesho hadda waxaad bilaabaysaa akhrinta
iyo diyaarinta iyo xifdiga imtixaanka. Insha Allah la soco cashirkeena labaad si aad duruustan ula socoto, talooyinkan aad ula socoto, annagaad noo dhiirigeliso. Haddaad u aragto barnaamijyadan inay faa'iido leeyihiin ummaddan anfacayaan, channelka subscribe saar, gambaleelkana furo, la wadaaga u gudba asxaabtaada kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.